si jumlo ah saaxiibada walaalayaal qabiil maama walaalayaal waxaan ku soo kara xala military. waa la yaab runtii maalmo yar ayaa ka soo wareegtay markii uu maxamed yuunus muslimiinta ugu hanjabayay inuu caayi doono nebigooda moxamed sala allahu calayhi wasalam. hadday habar idin dhashay abuukar annagoo rasuul noo yahay oo nebi noo yahay waxaan samaynayo waa wax aad waxaa habeen ood la oynayseen wuu alleedana samaynaynaa marka ani waxba ma qariyo hadda cidna ma cayn waa digniin laakiin waa waxa keliya oo aan isku difaaci karno kaaga oysiiyo muslimiinta ayuu ugu hanjabayay inuu nebigooda caayo si uu ugu oysiiyo laakiin ilaahay wuxuu ku salladay canug yar oo gaal ah. dulli wey dulli intaasaa uga hadlay ishiisaa ka baqaya inay gasho mooye aad iyo aad walaahi ku gelaysaa walaahi iska soo xira walaahi qofka da'dan jiro maanta dhan doonaya jir inuu u taariikheeyo maanta dhan doonaya subxaan allah waa sidan ciqaabta qof kasta ee afka ku taaga nebigeenna sharfan moxamed sala allahu calayhi wasalam canugan yar ayaa ka oysiiyey. habeenkaygu calxubadaad caawo sababta waxaan soo xasuustay si jumlo ah saaxiibada walaalayaal qabiil maama walaalayaal waxaan ku soo kara xala military daaroodii uyusug dadka waxbarashada qayb ka soo qaata daarood bay ahaayeen hawiye ah intisaab bay ah dadka aabbee saaxiibadana qabiil ma aqaano waxaana ka subxaan allah. إنا كفيناك المستهزئين. allah ayaa ballan qaaday inuu ka kaafiyo kuwa ku jeejeesa nebigeena. okay lama rabo inaad meeshaan kusoo boodo waxaa la rabaa bal hadday habar idin dhashay waxaa u jawaabin dadkaas diinos oo daa axmedow daa diinos sida u hadlaa isagaa xoraya hadday habar idin dhashay abuukar annagoo rasuul noo yahay oo nebi noo yahay haddii nebigeena caysaan meeshaas waxay ka yimaadaa wallaahi oo bilaahi taala idinkaa mas-uuliyadda qaadaya annaga baabna shira ma laha shuruucdana qabato waa shaksiyad iyo xishood iyo damiir mana u dulqaadan doono abuukan wax laga sheego waa ku celinaa mar labaad nebi iyo rasuulu noo yahay haddii rasuulkeenna wax ka sheegtaan wixii ka yimaaday idinkaa dus saaranayo oo igu waxaan samaynayo waa wax aad waxaa habeen ood la oynayseen wuu alleedana samaynaynaa marka ani waxba ma qariyo hadda cidna ma cayn waa digniin laakiin waa waxa keliya oo aan isku difaaci karno kaaga oysiin karno waa waxa keliya oo aan isku difaaci karno kaaga oysiin karno waa waxa keliya oo aan isku difaaci karno kaaga oysiin karno ninkaas faraha kala baxa wax aadan weligiin maqli doontaan haddaan ninkaas habeenkaygu calxubadaad caawo sababta waxaan soo xasuustay si jumlo ah saaxiibada walaalayaal qabiil maama walaalayaal waxaan ku soo kara xala military daaroodii uyusug dadka waxbarashada qayb ka soo qaata daarood bay ahaayeen hawiye ah intisaab bay ah dadka aabbee saaxiibadana qabiil ma aqaano waxaana ka baryaa qabyaaladdu waxun. diinos mulxidiinta hortooda ayuu ka oynayaa asagoo ku calaacalaya anigu qabiil ma aqaano laakiin taasi waa beentiis. haddaba ila dhegayso isagoo muslimiinta ugu hanjabaya inuu qabiil iskugu diri doono. qofka qabiilkan iyo waxaan abaabulay oo in qabiil dadka ay tahay aniga waaye haddana mid kale abaabula wayna tahay labada ninoo hadda noo sheegaya ninkan odaga AJ axmeyre mursado waaye yarkaan moona abgaal waaye haddaan kuu sheegaa ma keeni kari waa beentiis. haddii AJ cabdi xildoon qof kaloo hawiyaa oo mulxida ay keenaan oo aysan qof daarooda ku soo xujin oo qof kaloo daarooda ku xujin wallaahi oo bilaahi oo talaa qabiil anaa u samaynaa dadka ay maqla dee rabaan taas waa midda hawiyaan kugu jawaaba marka AJ hadda way maqlaa anigu horta haddaan AJ waa nin saaxiibkay aad u jeclahay AJ qofka
muslimiin meeqaana inta joogto 170 qofaa joogto qofka ku xigo ee lasoo wado hadduu hawiye noqon waayo aniga mar dambe dacwada waa ka baxda caawa anaa igu sharfe hawiyaa soo bandhige hawiye kalaa ku xijine hawiye kalaa ku xijine hawiye maba aanba gaale maxaa gaal hawiye maba aanbe maxaa gaal waaybe maxaa hawiyiis naga galanay odayga hawiye muslimnimo ku dhintay cabdiqaadir bosa ugu dambeey muslimnimo ku dhimanaa wixii u dhexeeya dhag oo gaalo noqdeenna mama naga tirsanaba aj ilaahay baan kugu dhaarshay ummadda islaamka horteeda caawa waxaa kaaga codsanaa next person oo lasoo qarxinayo waa inuu hawiye noqdaa waa inuu abgaal noqdaa weliba anaa abgaal waceesla haddii la heli kara xataa lasoo qarxiyo cid siduu diinus ballanta u qaaday oo yidhi hadday dhacdo xiniyaa iska siibaa haddaad nin daarooda keentaan anna xaniyaa iska siibaa daarood halkaas ii dhig aj ka shaqeey hawiyaha wasaqda ah ee gaalnimada caddaystay ee mataqaanaa diinka ilahay ku xadgudbayo garabaan kugu siinaynaa soo bandhig ballan ilaahay aan ka qaada caawa inaan garab kugu siino daarood markaa aad ku dhan le aad wasaqda hawiye sifay saaxib